waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal dhawaanta barnaamijyadii halkan ka baxay midkood sidaad ku maqasheen codkii qaadka geela loo duulin jiray wuxuu Soomaalida u lahaa xeerar ku saabsan hogaamintiisa kuwa kale oo la xiriira kolba xoolaha la soo helo cidda wax ku yeelanaysa iyo wax qaybsiga guud ka hor raggii dheeraadka laga siin jiray kuwii ay ahaayeen raggaas oo la yaqiin sababta uu midkood waliba dheeraadka ku mutaystay ayaa waxaa ka mid ahaa ammaanduulaha uu ciidanku taladiisa iyo hogaamintiisa ku soo guulaystay iyo markay soo duulayeen wadaadkii u soo xirsixiray waxaa kaloo ka mid ahaa degmadii degnayd ee la soo dhacay ninka hortii soo ilaaleeyey kii iska lahaa gaadiidkii kumbiska baraxa iyo biyuhu ay ugu raraayeen iyo gabyaaga oo sida kuwaas aan soo sheegay isaguna geelii la helaba ku lahaan jiray tulid loo og yahay oo saamigiisa ka bannaanka ah hasha gabayna loo yaqiin runtii dhowrkaas halaad waxaa ugu caansanayd midda gabayga maxaa yeelay maansadii hore ee Soomaalida ayay daf ka tahay gabyaaga qudhiisa ayaa mar walba wuxuu ku xusi jiray colku markuu soo noqdo tixaha faanka meerana ee uu mariyo wixii dhacayna uu kaga warramo su-aasha haddaba meesha tan ku jirtaa waxay tahay muxuu gabyaagu hashaa dheeraadka ah ku mutaystay gabyaagu mar waa nin gaboobay oo gugiisii hore u batay sidaa darteedna aan colka duulaya raaci karin marna waa nin xoog ah oo dagaalyahana ciidanka kalena la too ah marka haddaba uu waayeelo ragga colka wax ka ambabixinaya ayuu ugu horreeya gabayo duca ah oo inay gacmo buuxa la soo laabtaan wada daaran ayuu ku sagootiyaa ugu dambaystana ma iloobo markuu ka soo laabanayo inuu kala ballamo haddii wax la soo helo inaan hashiisa lagu murmin lagana lex jeclaysan taasna waa laga yeeli jirayoo weliba hadduu yahay gabyaa magac weyn leh oo maansadiisa aad loo jecel yahay isaga oo meesha gabagabada la dhigay aan ku sugnayn ayay qaybta ku dari jireen haddii uu gabyaagu colka ka mid yahay badanaa hashiisu ka hadal ma lahaan jirine inta lagu yidhaahdo geela u dhexmar ayuu kala soo bixi jiray tii ay ishu kaga dhacdo marar badanna waxaaba dhici jirtay isla gabyaaga colka la socdaay in ammaanduuluhuna uu isaga yahay markaasna uu qaato laba halaad oo midna hashii gabay ay tahay tan kalena tii uu ammaanduulka ku mutaystay ay tahay raggii sidaas wax ku qaadan jiray aad bay u fara badnaayeen tusaale ahaanse aan ka xuso raago ugaas faarax afcad owdha ducaado suldaan ismaaciil mire cabdi wasaba baaji oo cabdigahayr loo yaqiin iyagaas iyo tobannaan kale oo la fac ahaaba waxay ahaayeen maansayahano xilligoodii aad loogu dhagtaagi jiray isla markaasna ammaanduulayaal colwadeena wada ahaa waxaa iyaguna jiray labadaas halaad ee ay burada u lahaayeen rag aan ku ekaan jirine in badan ku darsan jiray siduu raago ugaas yeelay seeruu u gabagabaysnaa col uu isagu ammaanduule u ahaa geel u soo dhacay hashii ammaanduule iyo tii gabayga ka sokow wuxuu raaga ku darsaday welibana uu boob iyo buubsi ku qaatay laba irmaana laba urey ah iyo korab weynaaday oo micigamaar ah tudc ka mida gabay dheer oo uu kaga warramay duulaankaas iyo geelii ay soo qaadeen qaybtii uu ka helay ahna gabayada shaadkaasa midka ugu filka weyn ee la soo gaaray ayuu raaga ku leeyahay burcaseenyo qaalmaha bulkuda daydcad boqon weyn leh bidahaama lagu dhaamiyo iyo bacdilihii naaxay
iyo laba la ii soo baxsho buriya dheeraada iyo laba barkaha buuxisa oon buubsi uga taabay iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan baabkuu yiqiin aabbahay baal isugu socda sida tixda ka muuqata wuxuu raagi ku faanayaa inuu ku bannaan yahay aabbihiis oo la odhan jiray ugaas warfaa oo warfaa ilow lagu naanaysi jiray kaasoo sidiisa oo kale kolba intuu doono isaguona geela xabbaadha ah ka qaadan jiray yeelkeede aan kolka dib ugu noqdo su-aasheennay ahayd maxaa gabyaaga hasha dheeraadka ah loogu gunan jiray siday u badnayd geyiga uu colku ka duulaayo iyo midka uu u duulayaa aad bay u kala fogaan jireen inkastoo tolalka dariisyada ah qudhooduba intay isu duulaan ay xoolaha kala qaadi jireen haddana waxay door bidi jireen inay colka ku dhafdhaaraan reerba reerka uu ka durugsan yahay isla markaasna xeer iyo xoole isu celis toonigii aanay ka dhexayn sababtaas ayaa marar badan colka ku siini jirtay rugihii ay ka duuleen inay muddo dheer ka maqnaadaan markaas bay bil iyo ka badanba dhul qarfo ah oo laga kala guuray jibaaxi jireenoo kolba dhinac ugu saqaafi jireen daal iyo cagamurux intay ka mutaan bay aad u taag dareeyaan baadka ayaa ka dhammaada markaas bay gaajo la gorongolaan biyaha ayaa ka gabaabsiiya markaas bay afka iyo dhuuntuba oon la qallalaan oo weligiisba raggu isku adkaysi ma ahayne qaar baa haddiiba intay dhanqalmaan tallaabada gediya waaya markaasna intay quustaan kuwa kale ku tirtirsiiya geel la waaye in meeshii uu ka soo duulay uu colku dib ugu noqdo halkan ayaa haddaba gabyaaga colka la socda hawshiisu ay ka bilaabataa wuxuu tiriyaa gabayo maaweele ah oo ragga ku ilowsiinayo dhibaatooyinka ay qabaan ee geelweytada iyo socodka dheer ka soo gaaray wuxuu mariyaa geeraaro uu dhaxanta habeenkii ku ilowsiinayo gabadanada aroortiina uu kaga diirinayo waagu hadduu bariyo iyo casarkii haddii ay qorraxdu galbeedka u hoobanaysaba wuxuu ciidanka ugu laab qaboojiyaa dhagahana ugu shubaa gabayo daawasho ah oo si aanay gacmo maran ula laaban uu eebbe kaga baryaayo muraadka ay u socdaan inuu u fududeeyo harkii iyo habeenkiiba wuxuu ku dul akhriyaa tixa uu ku dhiirigelinayo ee uu quusta kaga beenayo harkii iyo habeenkiiba wuxuu u sheegi jiray haddii ay dul qaataan maalmo yar gudahood inay gacmaha ku dhigi doonaan weligeedba geel uu colqaado kii ugu badnaa sodonley geel aan saamigiisu ka yaraan doonin nin walibana uu xeradiisa ka buuxsan doono markaas baa raggii wada dalleensanaa uu xoog horlihi ku soo korri jiray ballanqaadkaas quruxda badan bay dagaalyahanadu rumbiya kama dhibacaana u qaadan jireen maxaa yeelay waxay rumaysnaayeen in gabyaaga la weheliyo oo jin ama malaa'ig cid u warrantaba isaga si gaara wax badan loo tuso taasina waa sababta haddii geel la soo helo ay isaga daawashadiisa u saarin jireen ee hasha gabayna uu ku mutaysan jiray dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo